kusoo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijka xusuus reeb ama xasuus reeb oo aanu ka duubaynay adnaa aadan ismaaciil oo aad intiina badani aragteen ama taqaanaan ama aada maqasheen laakiin barnaamijyadaa wixii ay kaga sheekaysay gaar ahaan qaybtii hore laga yaabo inay ku jirtay in badan oo aydan adna ka aqoon inay iyada lafahaanteedu ka sheekaysay waxay sheekadu noo taagnayd 1961 waa markii ay ka soo qalin jabisay anu qalin jabin maydhaaye ay ka soo aflaxday culuntii xagga caafimaadka ee ay u joogtay muddada waddankaasi ingiriiska cusbitaalka hargeysa ayay timi waxaa la yaab lahayd waxay noo sheegtay 22 bilood in bilaash u shaqaysay oo lacagteedii laga joojiyay sababaana ugu wacan aan hadhow ka weydiin doono qaybta kale ee barnaamijka iminka aanu bilaabayno ka mid noqon doonta waxay noo taagnayd oo kale waagaa ay soo noqotay afgembi ama inqilaab ayaa la isku dayay Somaliland in saraakiisheedii militariga ay lahayd ay wax ka gadoodeen dabeedna ay isku dayaan inay dalkan dib u qabsadaan waxbaa dhacay waxaase wax ka weydiin doonaa adna qaybta labaad ku soo dhawow markaa aad soo noqotay waxay inoo taagnay inqilaabkaa ay isku dayeen saraakiishii reer Somaliland oo dabcan aad kulley maadaama intii gobonimada la qaadanayay iyo goboniyo aad ku maqnayd ingiriiska haddana qof mutacalimadahoo wax kala garanaysa baad ahayd oo waad la socotaa wixii dhacay sidii wax u jireen iyo hadday wax xumaadeen iyo haddaynay wax xumaan iyo waxaan gadoodkan keenay halkaa maxaad ka horeysaa bismillahi raxmaani raxiim waa runtaayoo bishii December 10keedii 1961 ayaa waxaa dhacay inqilaab military waxaa aabbahay allah yarxamo aadan dhakhtar bishii 1deedii buu dhintay December 1deedii 61 ayuu si laba filaana mutalqaf leh amar allah ayuu dhintay maalmahaas ayaan tacsidii iyo naxdintii iyo aan ka soo yara kabmay oo aan shaqadii haddana aan bilaabay aroortaa bishu 10 ka tahay ayaa waxa igu garaacday umuliso isbitaalka ka shaqeyso habeenkaa shaqeynaysay ayaa 6 aroornimo igu garaacday tir waxa gabadhii baxaysaa joogtay kaalay gabadhii waan ka cadhooday waxaan maxaa ka haday dhiig baxayso maxaa ka keenay maxaa telefoonkiigu soo sheegi weyday way waxaan ku oran jiray marka ay wax dhacaan isbitaalka 2 1 3 waqti walba la yeeli jiray adigu ha ka imanay telefoonka igu sheeg waxa tira kaalay haba ii micnayna horan waxaan sa dhacay waxa tira waan ku baahanay kaalay dabatan saa waqti u lumin intii aanu sii soconay bay ayay markaa maxaa telefoon soo dir weydo waxay tahay maxaa telefoonadii baa xidhanay oo see telefoonadu xidhay waxay tahay miyaan garanaynaa military ba adduunka haysto wax dhaqaaqaya iyo wax soconaya ma jiraan isbitaalkii baanu galnay gabadhii dhiig baxaysay iyo arrinteedii iyo wixii baanu galnay wixii waa joogsadeen waxaan markaa maqlaa dad magaaladii ka imanaya oo leh xalay inqilaab military baa dhacay oo magaalada waxaa haysta taangiyo iyo baabuur waxbaa ciidanka ayaa ku wareegaya waxaa iyana jirtay markaa gabadh la yidhi magaaladii ku foolanaysaa oo iyana waxbaa ka sii ah lana soo qaadi kari waayo la yidhi baabuur ambulance mooye wax kale ma dhaqaaqayo markaa waxaanu kaa baryeena inaad dee ambulancekiina siiso oo dee gabadha aanu ku soo qaadno waan raacay markaa ambulancekii baan raacay waydaa haddii ay dhibaato jirto oo ama dee dhexda lagu xidho oo lagu joojiyo dee qoftii meel cidla ah ayay ku dhacaysaa marka waa dee qof wax u qaban karaya markaa kiishkii qalabkii igu jiray baan qaatay isbitaalkii ambulancekii baan raaco xaafadda malaha New Hargeysa agaarkeeda meelahaas meelaba nala geeyay ayaan tagno gabadhii baanu aragno waan soo qaadno ambulancekii baan ku soo qaadnay waana sidii shaqaaluhu sheegayeeno baabuur
dhan oo gaashaaman oo ciidan la socday dhowrkii tallaababa la joojinaysay oo hubinaysay gaariga waxa ku jira oo qofku inuu sido hubinaysay inay qof dumara tahay iyo in kale adu si baan gabadh ayaan ku soo gaarsiinay gabadhii baan ka dejinay waa hawsheedii markaas waxa bilaabmay in dhaawac naloo keeno way nin askari baa naloo keenay way calooshay kaga dhacday way ninkii oo aanu ka jarayno dharkii iyo ka jeexayno si aan nabarkii u gaadhno isagu se xaalkiisu markaa aanu soo xidmay waxbay sii dhex martay laakiin se dhiig kama socdo markaa way ayaa la keenay dhaawacii labaad wuxuu noqday xasan kayd allah yarxamo ninkii inqilaabka madaxdu ahaa way ayuu noqday way teatarkaanu ku haynaa teatarkuu ku jiraa ninkii hore oo miis buu saaray sax kana dhooligaa lagu keenay xasan kayd wuxuu dhooliga dhulkii baa la dhigay way dhulkii baanu markaa dhulkii baanana aan kaga furfuraya maryihii iyo surwaalkii iyo ka jeexaynaa waxaanu u butaacayaa sidii dee webi ayuu dhiigu uga socdo halbowle ama xidid weyn buu ku dhacay markaa ma lugtay kaga dhacday bowdaday ahayd bowdada bartankeeda ahayd way annagoo pressure saarayna cadaadis cali qaadina uu idul taagaya anna aan jilba joogo oo aan maraan duubayan nabarkii saa ugu cadaadinayo sax ayaa waxaa soo galay askar way qoryo sidata way horta maya xabaday cisbitaalkii ka rideen waana mamnuuc cisbitaal xabada lagu ridaa waa mamnuuc xabaday rideen markaas waa maxay waxa cisbitaalkii xabadaha ka ridaya iga saara waxa xabadaha ka ridaya way شو أنا قبل نقول صوت سعودان وحنا ما شاق ننكي لكياني وتيتركي بمرك الله صوت المامو الباب كبير لاد كصفرين وإنه يمدن مرك هسير وين هي بدو لبن نور ده إنسان والله أنا برتها كتوغنا وعسبتال وثياتر وممنوع قف مساجد أما عسبتال وصو مكان قلي حيرك أدونك هو كممنوع مركو كبحو ماشي دولي سالة مركا سير ما عسبتال بيت كنت ليسان ماشي عسبتال تهي مدينة نوغين إيقا بحرتا كما هاقن إيقا لبح إيقا صار ماشي ولا بوابه والله أنا كنت هوغن مركا تقول لي سير الله صواب حي أيو يقول صواب فيق كي أكت هاقنا با قرب كتابتي مركا انتو قوري حاجة كلو الربي أيو قرب كي نفط أنا مركا waxaan isku dul tuuray dhinacaas aan u dhici lahaa xasan kayd baan isku dul tuuray sax oo dhanna wada toogo ma waxaas aad imka ku dambaysay ninkan uma noola waa bakti markaasaan maradii uga qaad maradii aan ku calaadinay dhiiga ayaan ka qaaday dadka aan dhiiga u barnada dhiiga way ka sasaan markaasaan intaan ka qaaday maxaad doonaysaa toogato ma meydkaas doonaysaa toogato bakti wareeyo توجد وبختي أنا وان دول فرديا مركز هي لادين وان دول تجنانينا يعني ما يدول تجنان سبنا كذا بحيسة ويعني وان قاضينا هذا بقى تحسين إنه قاضي من كان أمر بانو هيسنا وان قاضينا أنا على بقى راعني برتاح بالله كاني أمبولانس كي بالله صاري ما هرتو بيحب أن دوبني ده لوكتي اللي ويديك بحيسة صح أيانو حدني برتاح بان لكاني waxaan u nimid kii markaa meesha haystay waxaan dhahay wax xeer ka adduunka baa jiray ninkan waanu daweynayna anagu maanu soo qaadin waana loo keenay mar hadduu xeradii cisbitaalka soo galay waa magan lama taaban karo lama dili karo ilaaliya haddaad doonaysaan markuu bogsado la taga meeshaad doonaysaan geeya laakiin intuu cisbitaal ku jiro dee xeer maaha marse waa dabad celinaysaan celiya midda kale qalliin buu u baahan yahay dawan dhiiga laga joojiya kii kalena wuu na sugaya celiya laakiin se waxaa idinla joogaya askar mar walbaba dee waayaa daba kaba hagaagsan soo gelaya waa boorkan iyo theaterka kala soo gelay horta cawaandiyad baan ahaa dee maya waa siday tahay
وعسبتال وعسبتال كبل لما سوق لك كرو كيغان مركان قال كبها وان اسك بخيا waa kayga hadaan doono intaan wax kasta ku soo joogsado waa la gal lahaa cid oranaysa maxaad la gashay ma jiro laakiin sharciga ah nidaamka patientka nidaamkiisa iyo daweyntiisa iyo boksigiisa ayaa xukuma in waxyaabaha laga ilaaliyo waan ninkii wala soo celiyay waan qalay kii kale waa la qalay ayaan markaas haddana markaan nimid mayd saddexaad baan loo keenay oo Allah yarxamo عبد الله سعيد عابي وإسقنا سيدا شانددا تضبي الله واتني ما جوا حنو كتير نبوس مورتم كي أي كود عضي مستركال بوها يسنسوا معي مستركال بوها تضبي الله واتن سيدي الله وادو النمبر واحد بدن دوري الله واتن حبضوت أيا كوشان دايسنا واي إسقو ميد بوها إسقو قرآن شو سنكي أفكار كسر بحيسو شو دور ساعات بوجيف ماشي أو مركز القرآن شو كبيرنتي ودحكش ميت كيسة موجودة على دقي لبدي كلا والله قلي الله يرحمه حسن كيد متبع ما على دقي لبدي نن صح متبع قاعد بالوس سمية صح حسن كيد طاقة الضنبئية طاقة الباب كهرباء أسكر بعفرد ده كأنه قلي إنه وكاس waxaa jirta hada markii theaterka aanu la galay ayuu iqanjiiri sax markaas uu jeebka sare waxa buug baa igu jira buuga gub hana akhriya way وان اسكا وسي wax oo dharkii iyo wixii oo caan karo wixii ka faado wixii baan la baxo wixii ana jeebka ku ritay fariid ila theater baan ku jiray isagii waan suuxino waan hagaajino waan ka soo inaan bumsido waxaan ahay wixii markii aan qada tagay ayaan dabatana gubay mana akhriyo mar dambe beri dambe iiga sheekaynayaa wanigeeda marka beri dambe oo dhowr iyo 10 sanadood ka soo wareegan wanagii wanagii xaas u noqday wuxuu yiri hadii buugaana loo heli lahaa intayada waxaan ahayn toogasho maris wayde plankii oo dhan baa wixii ay dhigteen iyo go'aankii iyo qalabka ay wixii baa ku jiray marka horta kaas uu ina daayay لكن سامحني حيصيرنا وصفين ولا صرت روح قاقرني واحد يقولون آمن دواء سيدي نظافة وسلام كي هاي قف باله هنا إيه جنبه يريد واساس أنا حاجة واحد كهيرا سلاسان كهيرا وحيز انقلاب ودعي محور وحور sababtii SNM doorka u gashay ayay jirtay oo kale ayay laba dal oo waliba Somaliland da'weyn tahay Somaliland waa curadkii dalalka Soomaalidu degan tahay waa dalka kaliya ee Soomaali degan tahay ee madax banaana ee aan marnaba la gumaysan marka la yiraahdo gumaysigii baan ka xoroonay Somaliland inay tiraado maaha wada gumaysi maynaan arag leynama gumaysan marka waxaan ahayn la iskuma sheego gob baad ahayd Ingiriis baa idin yimid waxaad samaysateen heshiis difaac protectorate colony maynaan ahayn lahaansho may ahayn heshiis difaac buu ahaa adoo goba oo madax bannaan buu ku yimid Ingiriis odayaashii bay wada hadleen heshiis difaac bay samaysteen idinkoo heshiiskii difaac ahaa 150 sanadood ku jiray ayuu 80 sanadood ku jiray ayaa dabeetana tiraadeen annaga isku filan xornimadayadii madax bannaanidii baan doonaynaa صح waxaad samayseen heshiis waxaad samayseen waad ka wada hadasheen taariikh baa lagu heshiiyey go'aan baa la gaadhay Ingiriiskii wuu ogolaaday waxa lagu heshiiyey in 26 Juun Somaliland xorowdo
heshiiskan lagu heshiiyey 26 Juun wuxuu ku fulay salaan dabaaldeg iskacanqaad saaxiibnimo ingiriiski dawladii ingiriiska iyo dawladii Somaliland ee xilka kala wareegtay ingiriiska iyagoo heshiisa ay halka ku kala tageen Allah yarxamo Maxamed Ibrahim Cigaalna wuxuu ahaa qofkii madaxnimada ingiriisku ku wareejiyay ee madaxweyne u noqday Somaliland ee baarlamaankii markaa jiray dhowr iyo 30kii gudoomiye u ahaa oo head of government aha waxa markaa lagu heshiiyay oo laga wada hadlay in markaa dalalka ay Soomaalidu degan tahay oo dhan shanta meelood ka Faransiisku haysto inta Ethiopia ku jirta ka Talyaanigu gumaysto inta Kenya ku maqan iyo Somaliland in markay in gidigooda xoroobaan ay mid noqdaan oo shantii gees shantii Soomaaliyeed noqdaan inay wada garanayno nasiib darro hadda maxaa dhacday markii Somaliland ay noqotay dalkii ugu horeeyay ee xornimadiisa qaata ee ahaa curadkii ugu hordhashay ee ay dalkii Soomaaliya Talyaanigu gumaysan jiray ay isku darsadeen Israaci ayaa ka eexday Somaliland curadkii baa laga eexday كودي جولاي كوني سجال كودي جولاي مركي يجونا تلياني كحروبين كودي سجال بقوليه لحدن كي أي اللي هذا عاصمة حمر هاتمات هو أي هاتمات هل كان عين كان هذا واحد وحين نقطي وحين دونيا إن المركان رانو إذا راعي ما ينهض وده يسدات هاي إذا إسرائيل ما يربن ما يتعلين هذا نواتي اللي ما يوان إسرائيل ما يوان شنطة الصومالية دي وكها بلا شروط واتي اللي ربا هلا يسكر راح دي بلا شروط ما يأهين هلا إيجا إحد أو حبرشة هلا إيجا حلو أو عافماتك هلا إيجا حلو أو هرمرك هلا إيجا هرتشوك سدو أو بانك هلا إيجا حلو أو وحي بيع مشتر إيه هرمرنا إيه دالكي Somaliland هيستي ولي يمد ولا صاق عليه هالشيء ولي يمد هلا وضع بختي الله بديه Somaliland ده هالشيء مو هين إدنا والله ما أورا كرمركا سياسيين بيلهاي Somaliland سياسيين بيلهاي حزبية لهاي وارم SNL إيو نفتي NUF إيو USB بيلهاي صدق qof oo baarlamaan ay yeeshay odayaal bay lahaayeen cid walba ay lahaayeen dadku ma aqli lahayn miyaanay eedaha lahayn siyaasiyiintii iyo hogaankii ummadan horkacay dareenka ummaddu waxay doonaysay midnimo waxay doonaysay in shanta Soomaaliyeed la isu keeno oo ay horumar u dhasho laakiin siyaasiyiinta miyaanay xilkooda ahayn xilkoodii bay ahayd ummaday ahayd oo ummadani leedahay leesdiiba lama oranay wax la yiraahdo aan isku darsanay isdiiba ma noqon iyagii baa la hadaba la kala furfurtay way waa kidayna ciidaal istiqaalada dhiibay ayay ka baxay heshiiskii Israaciil la isku raacay ee xashadii ka dhalatay ee Somaliland dhan ka noqotay ayaa saraakiishii ciidanku ay ku heshiiyeen inay hadaba horta goostaan Somaliland way oo ilaa hadaba hadaad doonaysan aanu mar labaad ku soo noqono shuruudii hadaba aynu isku soo raaci lahayn hadaba hal kala dhigo wax military oo jaamacada ka soo baxay oo saraakiilna iyagu ma jirin sababtu waxay tahay qolada koonfurtu ma ilahay qolada Soomaaliya bilays mooy ciidan military ma ilahay markaasuma bay unkayeen Soomaaliya ciidan ma ilahay marka Somaliland waxay lahayd saraakiil marka saraakiisha waxa loo keenay waxa loo keenay saajimo la dalciyay oo korneyl laga dhigay sida wararka wararka ma waasaytahay la weyn joognay adigu ma wada naga yarayday waxay noqotay saraakiishii Somaliland ee qaarna Masar lagu soo tababaray qaarna lagu soo tababaray Sandhurst England waa kulliyadda militariga ee adduunka ku ugu horeeyay ka mid tahay ragii halka ka soo qalin jabiyay ee saraakiisha ahaa ee halkan yimid waxa la yiri waxa madaxdii noqonaya
rag ka da'weyn oo ku soo weynaaday bilays ama ku soo weynaaday ilaalo ama ku soo weynaaday tacliin yaraan laakiinse maadaama aynay haysanin saraakiil ciidan military Soomaaliya haysan oo kulliyad military ka soo baxday iyagii baa la rabaa xidigaha lagu tolo xidigaha adigu gacanta aad isku haysana inta doontaad isku taxdaa inta doontaad ku taxanaysa qaad shabeelle ama qaad maqad maadaama xukuumaddu ay xamar ahayd iyaguna gacanta isugu hayeen way isku taxeeno okay marka waxaanay sameeyaan ka dhaxgalay haddii la oran lahaa bal waayahay hal isu eego oo imtixaan ha loo qaado de waxa la garanay inay ahaayeen qaar badan oo imtixaan ka soo baxeen military aan ka soo baxeen oo dimad qaada anigu ma hadii la yiraahdo imtixaan military baa laga qaadaya de waan ku dhacaya oo de hore ma soo qaada waa lagu taxay markaas la soo diray markaas dusha lagaga keenay markaas dhibaatooyinkii ummadda Somaliland ay ka dareentay Israaciil ayaa waxa raacay hadana ka dul yimid militariga oo hadda leeyahay hal caburi oo ciidan hal saaro taasi ka gadooday way marka hadii aad la sheekaysatay ninkii afgambiga la isku day madaxda ka ahaa ee Xasan Kayd oo dabcan sirtii uu lagu diri lahaa oo direynad gubto ujeedo maxaan samayn lahay buu ku yiri hadii mesela hadii aanay yeeleen shuruudaha aanu la nimid ee ahaa 1 iyo 2 iyo 3 iyo day shuruudihii ay soo dhigteen xuduudayada waan xidhi lahay oo maamulka iyaga anaga samaysan lahayd madax badan oo civilian oo military ahayn نوان وير لهنا وحي إنا عقال بيكين لها إنه مدحوينه أي وقدر لها سومالي مركها وحي هذا وحي قرشة بلان A يا بلان B بلان ككواد قرشها كواد يا قرشها لبعض قرشها كواد حدي ونقض الشروط ونعكسنه لبعض الضربة أسمن ونقض هذا أهلا وسهلا هدون هو يا براد حشب براد والله جاء إحنا الصومال لنا يتعينا حدودنا حلوة يا للسعودي مثلا هدي مثلا ميليتري قارن ورئيستي الله يرحمه وكم منها محمد عبد الرحمن وكله wuxuu yiri khaladaad kan sameeyay waxa kamidha inaan la tashan saajimadii iyo kuwii anaga naga hoosay oo wax kala noo sheegnay baan haniya oo dalkii baa la soo weeraray oo dalkoo dhamaan oo dibadna dad arday iyo civil iyo waxbay la qabsadeen jileec xagga iyaga xaggooda ka yimid halka tala xumadaas iyaga way yiraahdeen halkaana jileec ay tala xumadaas taana way jireen Soomaa way jirtay goorma adiga kugu horeysay aad xamar taga xamar de horta markii inqilaabkan u dhacay ee la qaaday horta nimankii de horta kaaga waran way waati mid meelaha lagu keenay mid dhaawac culus lagu keenay kii dhaawacu 6 cisho dabadeed ayuu geeriyooday oo waxay dhex martay kali iyo waxbay dhex martay oo dishay askarga Xasan Kayd kii boodada ay kaga dhacdayna markuu 3-4 cisho la joogay ayuun baa 3dii habeenimo habeen barkii loo yimid oo la qaatay subaxii uma soo shaqo tagnay mise isbitaalka ciidan ba joogin ilaa askartii meesha wada tubnaan jirtay ee isbitaalka gaar ka hayn jirtay ayuun baan weyn way leeyahay Xasan Kayd bay xal qaadeen way leeyahay xal qaadi waxaanu ka daba tagnay hadana barjeex baan ku soo noqon oo barjeexii dib ugu celiyeen ee maalintii aan tagnay dabadaan ka soo celiyeen kala soo noqoteen leeyahay xamar baa loo dhoofiyay halkaasay ku hadhay waatii 3 sanadood ay xidhnaayeen waatii maxkamad la saaray maxkamadii maxaa lagu soo daayay in la ogaado weeyaan maxkamadda waxaa lagu soo daayay waxay ahaayeen saraakiil u dhaarsan Somaliland iyo kulliyadihii ay wax ku soo barteen kulliyadahoodii dawladihii dabcan Xasan Kayd oo kale England wax ku bartay de boqorada ayuu de u dhaarsanaa markii uu yimid ee Somaliland ay yimaadeen kii Masar ka yimid iyo kii meel kale ka yimid ay yimaadeen aad la cadaw bay dhaaran lama dhaarin sababtoo ah labada dal historian ismay raacin
waxay ahaayeen laba dal oo kalgacayluun isku raacay laakiinse laba dal oo sharciyan dastuuriyan midoobay may ahayn marka maadaama aanay Somaliland dawlad joogta oo ay u dhaartaana aanay markaa joogin intii halkan dawladda ka ahaydna xaggaa ku biirtay Soomaaliya anagu boqoradda Ingiriiska loo dhaartay Soomaaliyana de aanu ahayn dal si sharci la isu raacay de looba dhaarin markii la maxkamadda la saaray ee sharcigoodii iyo xukunkii iyo dambigii iyo wixii la isu miisaamay waxa la ogaaday in aanay nimankan sharciba qabanay oo haddii cid xidhayso de boqorada Ingiriisku ay leedahay inay xidhoode dalkeena de inqilaab kama dhigin oo Soomaaliyadan kamanay tirsanayn taasas lagu sii daayay marka waa qodob aad muhiim u ah way dhalinyarada maanta ma oga in marka ay dad meelahaas website-yada iyo ka sheekeeyaan Somaliland nagama go'i karto oo Soomaaliya kaama mid ma yahayne iska mid bay marka 33 baarlamaanka ah Somaliland waxa jira sharci ay soo saareen oo oranaya waxaan ku biireynaa in lagu biiro Soomaaliya waxa la leeyahay marka hadii baarlamaankii labada dhinac ee isu tagay uu ogolaan lahaa ama uu meel marin lahaa xeerkii ay Somaliland ma garanaysaa baarlamankeedu baas gareeyeen maanta sharci darro ahaan lahayd Somaliland inay sheegato inay gooni u taagan tahay laakiin maadaama aanay taas jirin saraakiishana lagu sii daayo la yiri dalkiina waxba kama sameeyeen Soomaaliyana raacin lagana aamusay siyaasiyan inta la cadeeyo mid laga seexdo laga aamusay bay ahayd in la cadeeyo oo jiilka maanta jira uu ogaado ayaa loo baahan yahay waxa kale oo jirtay de waxyaa kuwii maxaa naanaysihuba ku soo baxeen waxa la yiraahdaa aftid dadka laga qaado aftidii markii la qaaday dadkii deganaa Somaliland protectorate xuduudaheeda dhex deganaa maya bay yiraahdeen madow bay yiraahdeen markii la ogaaday inay Somaliland dadkii deganaa yiraahdeen maya dadkii Soomaaliya deganaa horta way ku gorteen oo de magaalooyinkii yar yaraa ee yabaal iyo watin kala waran shaqalkii wala weyn baad keenaysaa 60kii dastuurka 1 milyan ba wala weyn dastuurkii aftidii loo qaaday Somaliland boqolkiiba 8 way maya bay yiraahdeen de aftalaani ku qorrabay aftalaani ku qorramayna way yiraahdeen wixii Israaciil ka gaadhay islaamuhu waaba ku yiraahdo Allah soo korbaysteen low markii wax walba lagu qaali gareeyay wax walba lagu adkeeyay wax walba la waayay waa ku islaamuhu ku baraamburi jiray marka waa ku iyaguna ku gortay Soomaaliya waa tii ku goratay tuulo yar oo wala weyn oo malaha 5,000 qof degan yihiin waa tii leeyahay 1 milyan baa ha yiri oo markii naanaystu ku soo baxday naanays bilaash ma baxday leeyahay wadii wala weynaynaysa waxa soo meeran bay sameeyeen wadad aan israacin ma suqaa sa dhacay heshiis aan jirin baa ayaa lagu dhawaaqay heshiis ka dhan ah Somaliland baa lagu dhawaaqay waxa siguna ka gadooday goorma ku horeysay xamar waxa igu horeysay horta markii Allah yarxamo aaba dhintay marka de aaba dhintay bisha koodeedii labadeedii saddexdeedii waa aniga xamartiga geeridii aabo aaskade xabaal saddex cisho horteed lagu riday bal halkaas aabaa ku jira dadabatan markaan day soo duceeyay waan soo noqday maalmahaas baan ka soo noqday maalin laba ayaan ka soo sokay marka xamar waan arkay markii dambana waxa ii xigtay markii isaga xamar baa loo bedelay marka ayo aabo ma wuxuu u tagay gardaradan anigu mushahar la'aan ku shaqeynayay ayuu xamar u tagay wadaadada tii ashkatadeeda waxyaabo cisbitaalka burco u doonayay cisbitaalka burco ayuu haystay oo dawo la'aan haysay oo shaqaale la'aan haystay oo waa cisbitaaladii wixii laga gortay waxyaabaha waxna loo keenay wax kana loo soo bedelo miisaaniyad iyo ilaa awalta Ingiriisi waxba dawo bixin jiray oo shaqaale mushahar bixin jiray sanadii badh baa laga joogay markii Ingiriisku ka tagay
mushaar la'aan iyo dawo la'aan iyo gogol la'aan marka sababtaas uu tago caafimaad qabo madaxna ma wareerin anaaba airportka geeyay inuu adiga ku soo dhaciyo mushaarka iyo istaalka iyo aniga iyo waxa soo u tagay ummad iyo qaran iyo ummad u tagay Allah yarham dad badan mutul qalfaha markii dambe aan ku noqday waxay markii dambe aan xaaska noqday ee xasan aanu Allah yarhamu maxamed xaaji ibraahim cigaal aanu isguursanay ayaan markaa xagga u wareegay xagga u wareegay kamaad shaqayn xamar cusbitaaladii waan ka shaqeeyay waan ka shaqeeyay waxaan bara ayaan ahaa macallimad baan ahaa umulisooyinkii kalkaaliyaashii baan bari jiray oo iskuulkan la yiraahdo School Unchef loo litray Martina agtiisa ayaan macallimad ka ahaa oo qaar badan oo ilaahay ka shaqeeyo oo islaam ah ardaydeedii bay ahayd maxaaba iyo qaaran islaam ba ahayn waxaa ka mid ahaa maxaan ku yiraahdaa meel fog baa tagay shukr xaaji bandare wasiirka deegaanka ardayda wax u dhigi jiray ma halka ugu dhigi jiray bay ka mid ahayd ma sha Allah samsam maxay fawziya ismaaciil waa iskuuladii ka soo baxday courseska u dhigi jiray bay ka soo baxday marka halka macallimad baan ka ahaa markaad iskuursateen igaal prime minister waxa la yiraahdaa marka abadan gool muxuu noqday sigistii maya marka maxamed iskuursanay wuxuu ahaa mucaarad buu ahaa marka mucaaradka ahaa toddobiyo lixdankii buu noqday ayuu prime minister noqday ra'iisul wasaare waxa la yiraahdaa marka waxa dib u soo yar noolaatay ilaa xad cabashadii iyo tabashadii qoladii reer Somaliland ay lahaayeen waa niyo meesha isaguna madax ka ahaa laftiisu loolan jiray xageedina geyso waxay xagad la tagtay markuu prime minister ka noqday dawlad xoog leh oo magaranaysa reer galbeed ku xidhan oo ayay magaranaysa noqotay oo ololayaal badan iyo anagu arday baan ahay marka siyaasadda wuu fahmaynay waxa magaranaysa meesha ka socda laakiin Cabdullaahi ka tagino madaxweyne ka dhana madaxweyne oo wasaarado ka dhana qadiyada ummadda Soomaaliland way joogeen oo dad rag ku soo miciyaystay dawladda xamar ayuu prime minister u noqday oo siyaasiyan oo isagana uga dhigtay walo waxyaabo badan uu ka bedelay horta dagaaladii horta heshiisyadii NFD iyo maxaan ku raashay Arusha conference iyo maxaan ku raashay heshiisyadii horta dagaaladii horta joojiya dawlado badan oo laga goostay heshiiska laga goostay oo Ingiriiska ka mid yahay iyo Faransiiska iyo kuwaas hadda way soo noqdeen waxyaabo badan oo horta siyaasiyan ama hadday noqoto horumarka dhaqaale lagu soo celiyay oo Soomaaliland waxyaabo badan oo dad badan oo horta aan shaqo la'aan joogay oo lagu takooriyay Soomaaliland bay ka soo jeedaan dadkina uu soo ururiyay uu ku soo biiriyay laakiin waxay noqotay meesha uu yimid meel la soo dhameystay oo magacyo iyo baaba jiray dad magacyo naanayso ka loogu bixiyay baa jiray wixii uu qaban lahaana waxa ka soo gaaray intii uu jagada hayay socod meelo badan baad u raacday dhowr meelood baan u raacay meelihii kuugu yaabka badnaa horta mardhoof ma ahayn wali dhoof waan garanayaa laakiin xagga darajada ma garanaysaa dad badan baad yaad kulanteen oo madax sare ah horta inta meelood ee aanu raacay Italy Ingiriiska Jarmalka Mareykanka intaba waxaa lagu qaabilay darajo ama protocol ka madaxweynayaasha lagu qaabilo Mareykanku wuxuu New York waxaana laga soo qaaday diyaaradii madaxweynaha ilaa Washington waxa airportka Washington laga soo qaaday helicopterkii madaxweynaha ilaa meeshii salaanta lagu dhigayay ee guriga cad waxa loo riday
21 madfac oo u dhiganta tii madaxweynaha waxaa loo dhigay oo loo soo joojiyey madaxdii diblomaasiyiintii siyaasiyiintii safiiradii ayaa loo soo joojiyey waxaa salaanka hoostiisa ku qaabilay madaxweynihii dalka Mareykanka ee uu martida u ahaa President Johnson France maan raacin laakiinse waxaa kaa maan raacin waxaa ku soo dhaweeyey General de Gaulle ayaa ku soo dhaweeyey oo hadiyadaba iiga keenay waxyaabo guriga lagu sharaxa iyo wuxuu kaloo tagay Italy saasuma loo soo dhaweeyey Germany oo West Germany la oran jiray bariga inta Germanku aanu Israaciil bay hayde de sawirradooda way idinkan arkaan si loo soo dhaweeyey oo dhowr magaalo haddana loo dhoofiyey marka horta madaxweyne ra'iisul wasaare sida loo soo dhaweeyo darajo lagu soo dhaweeyo ayuu ahaa waxa martay qaad gaarana aniga ii sameeyay madaxweynihii Kenya Jomo Kenyatta iyo islaantiisa oo aniga iyo hooyaday Allah yarxamo labadeedaas ayaa iyuna martay qaad oo bari dhaweeto kala hore maraan Nairobi tagay sawirro ku soo baxay joornaalka oo madaxweynaha iminka haya Uhuru Kenyatta hooyadii iyo anigu aan isku sawiranahay oo igu martay qaaday gurigeeda ayaa joornaalka ku soo baxay bishii labaad kala hore ku soo baxay marka horta martiqaad wanaagsan iyo protocol wanaagsan iyo sharaf wanaagsan iyo ixtiraam wanaagsan ayaa lagu soo dhaweeyay